waa qisadeenii jacayl ee la magac baxday jacayl maal ka sarreeya qaybteedii siddeedaad. waxay noo maraysay maalintii xigtay hodan waxaa la socday Khaalid. waxay socdeen waddo dheer sida ay horay ugu socon jireen Ibraahim. Khaalid wuxuu si tartiib ah uga sheekeeyey noloshiisa, ganacsigiisa, safarradiisa caalamka iyo hantida uu helay. hodan ayaa dhegaysanaysay, laakiin qalbigeeda weli waxaa ku jiray Ibraahim. Khaalid ayaa yidhi, hodan waxaan rabaa inaad ogaato inaan diyaar u ahay inaan farxad ku geliyo. waxaan ku siin karaa nolol raaxo leh. hodan ayaa si deggan u tiri, runtii waan ku qadariyaa, laakiin qalbigaygu ma ahan mid lacag lagu qaadan karo. Khaalid wejigiisa waxaa ka soo muuqday yaab. hodan waxay nafteeda ku tiri, Ibraahim qalbi daacad ah ayuu leeyahay, laakiin Khaalid wuxuu leeyahay lacag iyo awood. waxay dareentay isqabqabsi ku saabsan qalbigeeda. Ibraahim wuxuu ka war helay kulankii hodan iyo Khaalid. markii uu arkay sawirrada iyo wararka, qalbigiisu wuu xanuunsaday. wuxuu naftiisa ku yidhi, wax walba waa la isku dayi doonaa si la iiga fogeeyo. waxaana lay tusi doonaa lacag, awood iyo sumcad been ah, laakiin qalbiga ma iibsan karaan. hodan ayaa Khaalid la socotay dhowr maalmood. waxay booqdeen maqaayado qaali ah, madxafyo iyo goobaha dalxiiska ee magaalada, laakiin qalbigeeda had iyo jeer wuxuu u jeeday Ibraahim. Khaalid wuxuu dareemay in hodan aysan dhammaystirin jacaylka. wuxuu weydiiyey, hodan maxaa qalbiga kaa qaaday? hodan ayaa si deggan u tiri, waxaa jira qof kale oo qalbigayga xakameeyey, laakiin ma sheegi karo. Khaalid wejigiisa ayaa waxaa ka muuqday xanaaq iyo amakaag. Ibraahim wuxuu go'aansaday inuu si toos ah u arko hodan. wuxuu tegey maktabadda meesha ay horay ugu kulmi jireen. markii uu arkay hodan, qalbigiisu wuu degay. hodan ayaa dhoolla caddaysay, laakiin indhaheeda waxaa ka muuqday walwal. Ibraahim ayaa yidhi, hodan ma ogi waxa socda. hodan ayaa si tartiib ah u tiri, Khaalid waa nin awood leh, wuxuu isku dayayaa inuu qalbigayga helo. Ibraahim qalbigiisu wuu xanuunsaday, laakiin wuxuu si deggan u yidhi, jacaylka runta ah ayaa ka xoog badan lacagta iyo awoodda. hodan waxay ogaatay in qalbigeedu si tartiib ah ugu jeedo Ibraahim. waxay nafteeda ku tiri, qorshahaygu ma aha lacagta uu leeyahay Khaalid, ee waa jacaylka daacadda ah ee Ibraahim. laakiin weli waxay ka baqaysay waxa qoyska iyo Khaalid samayn doonaan. aabbaha hodan wuxuu arkay in Khaalid uusan ku guulaysan. markaas ayuu qorshe kale bilaabay. waxaa ka mid ahaa in la joojiyo kulammada hodan iyo Ibraahim, inuu ka saaro maktabadda iyo meelaha ay ku kulmaan, iyo inuu cadaadis ku saaro hodan. hodan iyo Ibraahim waxay fadhiisteen beerta habeenkii. Ibraahim ayaa si deggan u yidhi, hodan haddii dagaalkan uu sii socdo, waa inaan ogaanno waxa qalbiyadeenna u muhiimsan. hodan ayaa indhaheeda ilmadu ka soo muuqatay. waxay tidhi, dhab ayaan u dareemay hadalkaaga, waana ballan. labadooduba waxay go'aansadeen inay isku kalsoonaadaan, inay iska caabiyaan cadaadiska, inay jacaylkooda ilaashadaan. laakiin waxay ogaanayeen in dagaalka hadda bilowday uu noqon doono mid adag. su'aashu hadda waa, jacaylkoodu ma ka adkaan doonaa cadaadiska qoyska, tartanka Khaalid iyo caqabado kale oo soo socda? waa noo qaybteena xigtaa dhegaystayaal.